السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت دمت الله ونحريستو، انت حنوسن إله عافية وحي مراد وخير إله السي آمين. لبدي بشي لبي تونان دول الحجة كون أفر بقل أفرتني تدوا كوبيغان سغالي طبان كي بشي شناد لبدا كون إلى تنلح مالين تلادة وحاروا هالقضب دير إنا وغهد له حالة كتاغن لبنان إسرائيل. koonfurta lubnaan ayaa ka socda dagaal taasoo ay xabad joojin jirtay laakiin israa'iil ay jebisay xabad joojintii. maraykanka wuxuu doonayaa wadaxaajoodka inuu sii socdo, laakiin ra'iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ma raba xabad joojin. beyruudna way diidan tahay waxa la dhahayo hubka dhigista, waxayna rabtaa inay magaranaysaa wadaxaajoodka u socdo oo isku maraykanka wafdi ka socda iyo wafdi ka socda lubnaan laisku dhafo oo magaranaysa ay la socdaan xabad joojinta. xisbullahna maxay damacsan tahay mowqifka xisbullah waxay wadataa danteeda, dowladda lubnaan waxay wadataa danteeda iyo xisbullah way kala duwan yihiin, laakiin hal ujeeda labadooda ka dhexeeya. ujeedada ka dhexeeya waxaa weeyaan inay israa'iil kasoo wada jeedaan, ay kasoo horjeestaan in dagaal ku qaadaan. hadduu wada hadalaan hadda maraykanka uu garwadan ka yahay ay fashilmaan, dagaalka wuu sii soconaya. laakiin israa'iil ayadoo xabad joojin ay jirto oo weli dagaal ay lubnaan ay wadin, ay koonfurta waxay ka wadaa magaranaysaa dhibaato ka wadaa weerareedeed caadiga ahaa. warkaas oo faahfaahsan harayna iga hadlo asagoo wanaagsan. ilo rasmi ah oo u hadlay dowladda lubnaan ayaa sheegay aljaziira maanta oo talaado ah inuu colaada iyo duqeymaha ka socda koonfurta lubnaan ay khatar gelin doonaan wada hadallada u dhexeeya lubnaan iyo maraykanka, lubnaan iyo israa'iil. ilo waraagta waxay sheegayaan in beyruud ay diiday isticmaalka ereyga hubka dhigista. sidoo kale wuxuu sheegay in maraykanka loo sheegay in xabad joojinta ay tahay wax walba oo isla markaana aysan suurtagal ahayn in xaaladdu ay sidan kusii socoto. ishaas warbaahinta laga soo xigta waxay xadgudubyada sii socdo ay keeni karaan in laba arrimood: in lubnaan aysan gebi ahaanba u dhaqaaqin wada hadallada, ama inay qayb ka gasho iyadoo keliya diiradda ay saarayso qodobada xabad joojinta. doorka maraykanka iyo mowqifkiisa netanyahu. isha rasmiga laga soo xigtay ayaa waxay sheegaysaa maraykanka uu doonaya horumar in la sameeyo wada hadallada, balse netanyahu ra'iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu diidan yahay xabad joojinta. waxay sidoo kale ugu baaqday maraykanka in dhexdhexaadida xabad joojinta wadaxaajoodada inay qaadato mas-uuliyaddiisa, isla markaana u qabato xabad joojin buuxda oo cad ah. sida lagu soo xigtay isla ishaasi, waxaa hadda la daraaseynayaa mashruuc ku saabsan bayaan ujeedinta oo lala yeesho israa'iil iyadoo maraykanka garwadeyn ka yahay, balse arrintaasi weli kama aysan gaarin heshiis kama dambeyn ah. mowqifka xisbullah. marka laga hadlayo xisbullah mowqifkiisa, waxay sheegeen in dowladda lubnaan ay aaminsan tahay in xisbullah uu doonaya inuu si gaar ah uga wada hadlo danihiisa
waxay sheegtay in gardarada xabad joojinta ay tahay xaddaaf wanaagsan dowladda iyo xisbullahna balse dhinac kasta uu leeyahay qaab u gaar ah oo uu ururinta wajigaaga wadaxaajoodka. Beirut waxay mar kale caddaysay inay diidan tahay isticmaalka ereyga hubka dhigista. waxay leeyihiin Israa'iil waxaan ka dhigaynaa hubka dhigista ciidamanka ka dhigaynaa. hadda hubka laga dhigi maxaa waaye? waxa raba kaa samaysana waaye. waxaana Maraykanka uu sheegay ka saarista iyadoo Lubnaan la burburinayo ciidamada gaar ah oo loo sameeyo hub aruurinta. isha rasmiga waxay sheegtay in wadahadallada amni ee lala yeeshay Israa'iil ay yihiin kuwo farsamo oo keliya, isla markaana ay saameyn doonin cutub gaar ah oo ka tirsan ciidamada Lubnaan oo loo xil saaro aruurinta hubka. waxaa sidoo kale uu sheegay inaysan jirin qaab qabiil ah ama kooxeed oo lagu xulayo saraakiisha Lubnaan uga qaybgalaya wadaxaajoodka, isla markaana inay bixiyaan ballanqaadyo siyaasadeed. ugu dambeyn, Beirut waxay doonaysaa in la sameeyo wadaxaajood oo Lubnaan iyo Maraykanka ah oo la soconayo fulinta ballanqaadyadaasi. ciidanka Lubnaan waxay sidoo kale rabaan in la joojiyo shaqada guddiga kormeerka xabad joojinta ee UNTSO. waxaa jiro ciidamo ma garanaysaa nabad ilaalin oo u dhexeeya. marka ciidamada Lubnaan waxay leeyihiin mar rabna ciidamadaas inay meesha sii joogaan. sidoo kale diiwaangelista xadgudubyada Israa'iil waxay kaloon rabaan in ma garanaysa xadgudubyada Israa'iil mar walba ka geysanaysa koonfurta Lubnaan ama Lubnaan oo gudaha Lubnaan oo dhan inay ma garanaysaa la socdaan. mar walba Israa'iil wax bay duqeynaysaa, wax burburinaysaa, iskuulay burburinaysaa, waday burburinaysaa, bunday burburinaysaa. waxaasoo dhan waxay leeyihiin waa in ma garanaysaa lala socdo xadgudubyadeeda. ciidamadan ma garanaysaa oo nabad ilaalinta loo soo gaabiyey UNTSO ayakan inay meesha ka baxaan. maxay meesha ka hayaan hadday Israa'iil waxba ka qabanaynin? marka waxaa rabay walaal qodobkaas oo xasaasiga ah oo dulmigu lagu hayo Lubnaan oo aad ma garanaysaa ugu danqanaya, waxaa rabay in la wadaago. waan salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullah.